I got lost tonight under the stars up in the sky. Directions hard to find under the stars up in the sky. I got lost tonight. Dawci kalluunkii kala arkaya wuu guuraya waqtiyadii dhalinyarada aan ahaa ee mataqaanaa la tahriibi jiray kolley waxa lagu tahriibi jiray ama kan awiyo ahaa ama wax u dhow I don't wanna take this, I don't wanna break this. We're living in the iyadoo sameyn jiray waxa kamid ahaa reer iska dul jiray oo jiray waa gaaloobeen si xoolahooda u dhaco oo badhaysto it's you and I. ugu dambeyn saaxiibeel waxa soo gaarnay dekada mayd kol runtii aad iyo aad baa loo qurxiyay waa la hagaajiyay dhismaheedu aad iyo aad buu dhameystiran yahay caadi ahaan magaalada mayd marka la imanayo waqtiyadii hore ee 80-aadkii ama 90-aadkii baabuurta waaweyn ee ka imaada Soomaaliland oo dhan waxay sameyn jireen meelahan ay ka qaadi jireen alaabaha xamuulka ah waxaana kala bixi jireen buurtii aan shalay toban dhan soo taraafil gareynay aan soo mareynay ay soo mari jireen sidoo kale dekadani hadda waa dekad cusub sidoo kale waxa dhinaca ka muuqda laashashka si badankooda waxa dad kalluumaysatadaas oo mataqaanaa badda ka kalluumaysta sidoo kale waxa ay qaadaan dadka dalxiisayaasha halkan imaada dad aad iyo aad u tiro badan ayaa mar walba halkan soo dalxiis taga waxaan u socon doonaa saaxiibayaal dhinacaas iyo gurigii Sheekh Isaxaaq doontaan raacayna ninkaas ka daro wala ninkaas markay igu waxaan ku soo shock baan ku soo laabsinaya imika kan telekoon waxaan wada imika dhowr sano wada imika wallahi anigu dabaasha ma aqaan ka war baalkan safetigis waxba noqon mayso hay kuligay Allah ma raacin laash sano kala badoo maraya waqtiyadii dhalinyarada aan ahaa ee mataqaanaa la tahriibi jiray kolley waxa lagu tahriibi jiray ama kan awiyo ahaa ama wax u dhow ayuu ahaa laakiin maanta waqtigii wadanka dhalinyarada ka tahriibi jireen muddo badan kadib maanta laash ma raacay waxaan ku suganahay magaalada Mayd rag baa waxaan ku soo dhaweyn iga dhigay oo mataqaanaa laashkoodii igu qaaday oo igu yiri badaan ka soo celinayna kolley waa dad soo dhaweyn badan soorka u garanaya marka aad iyo aad bay mahadsan yihiin laashka aniga wada kolba waxaan ku dhuwaan dhinaca doonaan u kaxaynaya marka waxaan ku socdaa dhinacii badweynta halkan jinkiisa ka muuqda ninkaas ay dhibay Bismillaahi Raxmaani Raxiim anagu waxaan nahay kalluumaysatada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka soo baxnay magaalada Berbera 14 casho ka hor ayaanu ka soo baxnay magaalada Berbera ilaa halkaa oo Maydha waxaanu nimi kalluun waxaanu sidanaa 15 shabag oo cusub intaaba waa dhigaynay ku manaystay badda waxa ka mid ah kalluunyo kalluunku waa laba nooc marka hore kalluun madow iyo kalluun cad ilaahay labadaba uu ku manaystay balse waxa jirta kalluunku markuu helo ma garanaysaa baddu hesho faya dhowr waxyaabaha dilaya kalluunka imika waad shaayadeynaysaa imika tanaa lagu shaayadeynayaa taasaan ku shaayadeynayaa maaragtaa taasaa lagu shaayadeynayaa waa kalluunkii baa u eg tahay waxay matalaysaa kalluunkii halkana jilib baa ku xidhan halkana jilib haddii ay furuursanto wuu baxsanayaa daawicii kalluunkii kala arkaya wuu guurayaa meel ka waran qoomiyadan amba duulaheedii la dilay ama la dhaawacay miya joogaysaa xayawaanka badda ku noolna waa nooca ilaahay wuxuu ku banaystay subxaanahu wa tacaala baddeennan cas ee Jamhuuriyadda Soomaaliland 850 kilomitir ee u dhigata 350 mayl ilaa min Lawyacado ilaa min Durduri waa 350 mayl xagga barigana u dhiganta 850 kilomitir ilaahay wuxuu ku noosay nimco ilaahay ayuu ilaahay khayraad aad fiican ayaa ilaahay ku nimcaystay balse waxay u baahan tahay sidii loo dayactir lahaa looga ilaalin lahaa dadka ajaanibka ah ee sida xun ee foolxumada ah uga shaqaysta badina kalluumaysatada Soomaaliyeed hal fariin kaliya aan dirayaa halka fariin aan dirayaa waxa weeyaan inay badooda ilaashadaan ajaanibka ka ilaashadaan iyagu ka shaqaystaan isdhiiri galiyaan sidii ay badooda uga shaqaysan lahaayeen ay sameeyaan Soomaalida kalluumaysatada intaasaan farayaa
isagu is saxaya mawliidow yay may waleegaya agada ku dambayso buurtii ilaahay gaali laakiin wariyaha ninkaasi wuxuu yiri ilaahay baan ku dhaartay waxaan la garanayn buu ku galaya wani anigana waa iga yiri saas aan baqayaana saco wariyaha wallahi waa weyn الله ياي أنا كبرك أقول رئيس مركان دون فوري وحياة بدن بيقبض دون ما فوري وحياة بدن بيقبض مكتة هي حنا وضرها مكتة أنا عم بدأ أقول يعني دون فوري تبدأ مركي شيء لما مريسي مل بقادي قلان اللي بدو إذا مريسي أيام حركة بدأ مدو ولو عدا وهاي سيبورها وكذا هواوين دعية وليا مرقنا كارو قبائل هي دو مركي يكوكي بدو أركوان مل على مل لو كعوان الله وانا جهادنا كالو جهادنا ويقول لك ساعة ودوت بحروس صعدة بس هدي بوصعتها وريال محبتي كوعش امس سنه هي عدو إلها شو صرنا ملها عيرها وقتي راح يعيدوا يوحاس تمام مرة سعودية يوم أنا هن عربت يلوك عشان قلقلي كل وقت مرنا انت تيمان كاد ما لو خري مر بان يوم لو خري sababta lagu xiray sababta lagu xiray waxa la yiraahdaa feel ciqaaba feel ciqaaba bay yiraahdeen ciqaabadu waxa weeye tar lagu gala dalka ما في بركة في البيت قولي جيت شفته بركة حوالي بمسجد بوقته بركة هذه قد دوّة ثم تصدق بدون ولا سعجري ها ندون لا ما راحين سعد ثم يوم بان قال بركة سوق قبته وي يا رفيق يا ولد أنا ها بركة في العقاب ما في عقاب فين بركة في البيت قولي جيت شفته هنا صعصع أنا صع أنا زيك حي هذا مير محي عان كنت قال عن waxay ku tahay ma og tahay magaalada waa caan waa qaraani magaalada ugu weyn tahay dalka waagi hore waxa la oran jiray dhulka kan mayd waxay xumaantooda bay meeydi jirtay bogti marka mayd loo bixiyay wax laal waxay xun bay meeydi jirtay mayd baa loo bixiyay waxaana deganaa dad odayaal carab iyo niman baa deganaa ma og tahay rasmi ah oo rag waaweyn oo yamaha dhulka ka yimid dad qaboobay ahaayeen wanaagsan oo dadka soo dhaweyn jiray oo kaale arago dad yaab leh ahaayeen badankeeduna liman bay ka dhisnay hadda daarhan iyo jaajuri wax baa la helay liman bay ka dhisnay marka asaaskeedu goorma la soo kartaa adigu asaaskeedu waa fogaa ilaa 40 qarni meelahaas laba qarni meelahaas dhisnay ina Abdul Xasan nin oran jiray oo dalka xukumi jiray waa ka horeysay ina Abdul Xasan waa ka horeysay nin oran jiray mar ina Abdul Xasan dalka haystay oo ceelay deganaa waqti ceelay dalka agteeda oo oran jiray hadda ka caawiyo ceelay kufaarka cadbid cobsi daahuri hadda ma lahayn iyadoo sameyn jiray waxa kamid ahaa reer iska dul jiray oran jiray waa gaaloobeen si xoolahooda u dhaco oo badhaysto waan kululaanay hadda qadadii baa soo dhacday waa qado waxa la gaaray waa ka hay annagana kaaga xageena loo dhigaya armawliidow dirba ciyaaraha waa bilowday miyaad cunaysaa cibaadaysan cidii ku hayadana ba way igu celin ciyaarihii intii asaaka cunay waan badan kaga soo baxay hay haddana waxa weeye magaalada marka joogtay waxa la cunaa waxay leedahay kalluun fresh war waanigi kalluun soo qabta horta ma ogidiine waa kii ilaahay igu badbaadiyey wadada loo laayay kada anaga qaadaysaa halkan Isxaaq waxa weeye meesha mayd dhab baxday Isxaaq waa kuwaas waa magaalo ahaan jirta baatan tuursi ceelka isaga qoday sheekhu markii ugu horeysay ceelkaas ka soo bilaabay dabeetana biya ka soo booday qudbiga isaga gacantiisa ku dhashay Isxaaq baa ku aasan laba nin oo shariif la dhis laba nin oo shariif ayaa la dhisay 700 sano ayuu dhisnaa waxaanu waxa weeye markaa yaani awlaadiisi waa ku aasan